السلام عليكم. inaad fiican tahay baan ku rajeynaya. Alxamdulillah waxaan caafimaad qabaa aniga xanuunsan ilaahay waxaan ugu rajeynaya inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Waxaan ahay Dr. Maxamed Abdul Istaasinayn. Halkan waa Akram Online College. Waxaan rabaa muuqaalkan gaaladna kaga jawaabo su'aalo igu soo laalaabtay oo arday badan ay i weydiiyeen sida aan u bixino Englishka gaar ahaan levelka hore sida u bixino levelka koowaad sida caadiga ah ardadu markay dhexdhexaad yihiin ama ardaygu lagu soo biirayo markuu yahay mid basic ka dhisan waxaan ka qaadnaa test waxaan ka qaadnaa exam oo tijaabo aynu ka qaadnaa tijaabadan waa basic wixii aan u arkanay dhammaantooda ayaa soo jira ayaan ka qaadnaa testigan hadduu ardayga content ku ka keeno waxaan u gudbinaa levelka labaad ee la yidhaahdo reading. levelkan waxaan ku barnaa ardayda keliya sida loo akhriyo ingiriiska wax cashar ah kuma tarjumno keliya waxaan barnaa sidee loo akhriyaa ingiriiska. markuu levelkan ka dhammaado ardayga markuu basic soo barto levelkan ka dhammaado kadib waa level koorsooyinkii caadiga ahaa markaasuu ku dhiiraa. haddii marka ardayga uu bilow yahay maxaa dhacaya ardayda qaar soo weydiinay su-aalaha waxaa u badan arday bilow ardayda bilowga marka sideen ka yeelanaa ardayga marka hore markuu soo course-ka kusoo biro casharadana waxaa lagu xidiyaa telegram. casharkii waxaan ku dirnaa telegram ayaan ku dirnaa waxaan dirnaa casharada sabti ilaa waxaan dirnaa talaado ilaa maalintaa baan dirnaa casharka subaxdaya badanaa dira casharada. marka bilowga ardayga markuu yahay level markuu ardayga yahay maxaa loo dhigaya waxaa loo dhigaa waxa la yidhaahdo foundationkan marka maxaa lagu baraa ardayga foundationkan kow ardayga waxaa ka dhiseynaa spellingka inaan ardayga uu barto erayada qaar iyo spellingkooda sida loo hingaadina. tusaale ahaan ardayga waxaa loo qoraa table waxaa leeyahay hingaadi ATABLE hingaadiyaa la barayo. markuu hingaadi la barayo video walba waxaa loo raacinaa testiyaa la raacina casharo aa la raacinaa oo dheeriga. casharada dheeriga marka ardayga wuxuu sameynaa buuggiisu ku qoranaa casharka markuu ku qorto wuu ku soo celinaa hingaadi uu soo celinaa wuu soo duuba marka erayga waa la akrinaa ATABLE soo duuba. marka ardayga uu soo duuba saddexa laga rabaa marka kow waqti erayga uu akrinaa caadi uu akrinaa tan labaad wuxuu sameynaa wuu akrinaa wuuna fasiraa tan saddexaadna wuxuu sameynaa wuu tarjuma yani wuu hingaadina. saddexda codoo ardayga soo diraya muuqaal weliba markii la barayo bilowga. intaa marka hawshan waxay ku qaadanaysaa hal bil ku qaadanaysaa. halkaa bil markuu ardayga soo qaata kadib testigaana la gelinaa. marka maxaa lagu baranaa kuwa bilowga maxaa lagu baranaa bilowgan waxaa ku horay horta spellingka tan labaad waxaa ku xigto ardayga waxaa la barayaa basic Englishka la baraa waxaa la baraa this that these those what is this what is that what are these la baraa. markuu kan barto kadib waxaa la baraa haddana waxaa la barayaa pronouns-ka magacyaalada I you we they she he it haddana ayaga ku jira jumlada la baraya. waxaa la baraa what is that wixii basic laga keena ardayga markii basic laga keeno waxaa la barayaa qaar ka mid ah erayada. tusaale waxaa la barayaa ku dhawaad 20 ama 30 eray la barayaa ardayga. 30ka eray la barayo 30 eray markii la baro 30 eray la baray spellingkoodii basickoodii ayagoo you we they waxaan oo pronouns-ka ardayga la baraa. marka ardayga pronouns-kan la baro jumlada lagu xaraam iyadoo caadi loo micneynayo iyadoo hadal ku xirnaa ardayga la baraayo. qaybtaan waxaa kaloo ardayga loo baraayo tusaale ahaan waxaa leeyahay luqadaada hooyo ku tarjum translate to your language ku tarjum luqadaada ku tarjum maxaa laga wadaa tusaale ahaan ardayga waxaa loo soo qorayaa xarafkaana loo qoraa ardayga waxaa loo qoraa xarafkan ardayga waxaa loo qoraa xarafkan markaasuu wuxuu leeyahay xarafkan waxaa la dhahaa T
U وحصونا الصومال الصومال حرف كان محاري هذا U حرف كان محاري هذا S نوع صوتها أي أرضي صوت أرضي نوع صوتها أي أرضي صوت رايا نوع صوتها أي أرضي صوت رايا سنة الله سبحانه ممكن نوع أخر كذي هذا نوع على سمينا أرضي وحال سينا حرف على سينا وحاليها إنجليزي سكان حرف كان سنة الله أخرى وحاليها حرف كان إنجليزي سكان وقوانا من أرضي ساسولي أنا الله أخرى وحاليها إنجليزي سكان نوع سولي automatically marka ardayga bishaan naga dhameeyo wuxuu awood yeelanayaa in gaar nooc walba ahaato inuu awood yeesho muddo bilood ku baranayo markuu bisha soo dhameeyo kadib waxaa ka qaadanaa testiga ardayga wuxuu ku baasayaa 52% 52 ardayga keeno imtixaanka ku baasan haddii imtixaanka uu dhaco marka revisional siina waa meelaha hadda lagu celcelinaya kadib imtixaanka soo gala ardayga waxaa la qadirayaa document-iga loo soo diraa waxaa la soo diraa muuqaal hagaaya oo dhahaya kan noocan laga rabaa kan noocan laga rabaa kan noocan laga rabaa uu ka shaqeynaa uu soo daabacana wuxuu ugu shaqeynaa gurigiisa uu soo sawiraa beed walba uu soo diraa meesha laga fiirinaa dhag dhibciisa oo la sheegaa waa baastay oo ku celinaysaa noocaasa loo reading ardayga waxaa lagu baraa reading ardayga waxaa lagu baraa meelaha ugu muhiimsan saarahaan uu khadalku waxaa leedahay shaqal iyo shaqmanihi ingiriiska la baraa markii la baro shaqal deer shaqal gaaba la baraa sida loo akhrinayo kaabka mudidan waxaa la baraya waxa loo yaqaan xuruufta aamusan ingiriisku waa cajiib ingiriisku marka la akhrinayo afkeedu hore aad ugu duwan yahay tusaale ahaan anaga af soomaaligan oo kale wuxuu leeyahay shaqal soo maaha shaqalka af soomaaligan wuxuu leeyahay tusaale ahaan waa a e i o iyo uu soo maaha af ingiriis asigana sidoo kale uu leeyahay shaqal gaabku marka waa isaga mido marka laga tago aqda af ingiriis ahaan waxaa loo akhriyaa eeda af ingiriis ahaan waxaa loo akhriyaa ida waxaa loo akhriyaa i oda waxaa loo akhriyaa u o-a loo akhriyaa udan waxaa loo akhriyaa saddex baa loo akhrin karaa uda marka fiido uda mar waxaa loo akhrinaa a mar waxaa loo akhrinaa u marna waxaa loo akhrinaa u waxaa maran maxaa waa hal u keliya ayaa saddex nooc loo akhrin karaa tusaale ahaan hadda fiidi haddaan ku horumarna tan oo kale eraygaan fiidi maxaa waa soo u kuma jirto okay bal eraykan aan soo qaadano ficilkaan fiidi asaga soo u ma aha ficilkaana fiidi soo u ma aha asaga xaggaan fiidi u ku jirto xaggaan macna u dheh tanna u soo maaha hadda kan akhri waxaa loo akhriyaa use ya u naqana kan akhri a loo akhrina but kan akhri miyuu iyu u naqana mar kale xitaa af soomaali ahaan uwada waxaa loo akhriyaa u ahdaa waa loo akhrin karaa tusaale ahaan fiidi eraygaa fiidi akhri soo galaanta but baa loo akhriya marka micnahaas oo dhan baa ardayga loo sharxaaya marka la baraayo akhrinta kan markuu soo barto marka tan waxaa la baraya ingiriiska wuxuu kaloo cajiib ku yahay marka la akhrinayo dadka qaar waxay ku leeyihin ustaadow ingiliishka tag soo barat waddan kale maa ka imaaday intee waaye sidee waaye dadka badanaa waxay igu xantaan are you from Kenya kenya maa ka imaadkaan because mar walba mawduuc ka hadlaysa you speak Englishka kenyaati miya no aniga ayay Kenya English waa banaan bahay Englishka kenyaati dadka qaar marka sababta u yaabay waxay tahay kaliya wax problem ma jiro aniga Soomaali meel kale uma bixin Kenya wantagi laakiin oo kaliya waa barasho ma tagin laakiin problemka jira wuxuu yahay erey walba haddii si sax ah loo akhriyo dabaqaada uu qurux badnaanaya problemka wuxuu yahay iskuuladeena ma ku barano sida loo akhriyo ingiriiska college online college caadi ma ku barano sida loo akhriyo ingiriiska taasna marka waxay keenaysaa dabaqeeda ku khaldaran okay marka waxaan jeclahay halkan tusaale ahaan fiiri af soomaaligeena ma jirto erey qoran xaraf ku dhex jiro oo aan akhrina ma jiro af soomaaligeena soo ma af soomaaligeena haddii hadda la qabto erey tusaale ahaan hadda waa kaasa hada waa la akrinaa aada waa la akrinaa da'da waa la akrinaa aada waa la akrinaa wax la akrinaa ma jirto af soomaaligeena ma ku jiro xaraf erey xaraf ku dhex jiro oo aan la aqrinayn ma
مكو أركنا لكن إنجليز بالعليا في إنجليز بالعليا حرف القراء هذا أرجع مثلا فيه أرجع مثلا فيه هذا بس كنت أنت على آخر الكور أرجع waxaa laga yaabaa in ereygan aad tiraahdo islet ereygan aad tiraahdo iswoot soo maha haddaba waa qalad ka waran ereygan xarafkan ma hadlaayo waa la aamusinaya waxaa loo akrinayaa islet ereygan imow xarafkan ma hadlaayo waxaa loo akrinayaa salt so marka confusion badan baa jira marka waa sida fahamkooda aad u qayb weyn ka qaadanaya in fahamka ardaydu hadalka Englishka yani dabaqooda ku barnaamij akan online learning asoo ka jawaabaya baahida jirta waxaan sameeyay kursooyin akhrinta ardayda lagu barayo hal bilan lagu barayo akhrinta marka kuwa ku barna kadib waxaan sameynaynaa tawali 4 sheeko oo qaadan la qaadana sheekani waxay wadataa audio maqal caadi ah oo ajnabi u akhrinayo marna ku akhrinayo mar ajnabiga akhrinayo mar ala akhrinaysa feeri marka codkiya lagu soo diraa waa ajnabiga akhrinayo cashirka gacanta ku haysata anaa ku akhrinayo oo macna Soomaali ku ah ma lagu fasirayo markaad dhageysato waad sharxanaysaa waad ceshanaysaa WhatsApp-kaaga soo qabsanaysaa buugga furanaysaa waa soo akhrinaysaa markaad soo akhriso salaad subax kadib su'aalaha badanaa ka jawaaba iyo habeenkii bacda cisha markaan xaafadda hooynayo 3 saac kale markaan xaafadda si aadayo ama salaad subax kadib waxaan ka jawaabayaa dhammaan fariimaha ay soo direen ardayda waxaan yahay meesha ka qaldan tahay meesha iska sax oo iska saxaya marka ardayda wixii ka dambeeya marka levelka loo sii aadaya ardayga levelka loo sii aadaya suuqtiisana تصل من الجامعة وإذا سوى بيننا كعام فرنا سوى بيننا قبل فرن بزنس قوامنا ما تريد تدوسي سكتة قوامنا حتى وحنا قالها يا قصة القوات حتى وحنا وما يشعر حساب صومالي إنجليز ساينس علم برشو أنت قوات إنجليز كتير قوات أنت كارك وامنا سديدات ولا حساب بيور علينا حساب علينا يعني أو بيسك فوق المتداوم والمسائل حسابات منها كان بحنا أمام مركب عليه آخر مرة قلت هذا لسه يحرق الطاولة لبعضهم صوت يالله لبعضهم هدي أعطاني سكورسوي كاس مع كل شيء يقولنا كعم فرق فما صنعنا